iyadoo muddooyinkii u dambeeyay ay maamulka heer gobol iyo heer degme ee Gabiley iyo guddida abaaraha gobolku ay ku hawlanayeen gurmad ay u fidinayaan dadka abaarta baani ku heshay deegaanada gobolka Gabiley iyagoo gaarsiinayay baadiye biyo dadkaasi ayaa sidoo kale waxay deeq raashin oo dhan 300 oo qoys iyo booyada biyo gaarsiiyeen deegaanada galbeedka gobolka Gabiley sida deegaanka Nabadiid Geed Hara iyo Cadaadadheeri oo hoos timaada magaalada Kalabeyd oo ka tirsan degmada Gabiley waxa halkaasi ka hadlay maayarka magaalada Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi barsaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi guddida abaaraha ee heer gobol wiigi inaga tagay oo ay maanta wiigan ay maanta u horeyso intaaba waxaanu ku jirnay raashin qaybin oo ugu horeeyeen dadkeenii waqooyiga ku tabaaleysnaa waan dareemanaa arrimaha aad ka hadlasaan oo maanta roobku markuu doodo dadku way jilceen waxa adduunay hayaan ma jirto waxay u baahan yihiin in beeru qolaalkana laga caawiyo waxaynu u ducaynaynaa inuu mahad celeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo baaqiisii iyo baraarujintiisii waxa weeye ay tahay waxaanu idinkula joogno eenu mar walba dadkii u dhex joogno isna waan u ducaynaa iyo xukuumadaba Ilaahay noo barakeeyo dhammaanteen aad iyo aad halkan maalintii aanu maraynay aanu kormeerka ku maraynay dadka deegaankan waxa noo sheegeen inay jiraan dad ka soo guuray Faraweyne iyo Arabsiyo hoosteeda iyo deegaano kale intii marka laga bilaabo biyaha sidii baan u siinaa maantana raashinkii waan ugu soo daray marka halkan waxay dumarku anigana ii sheegeen ma idin loo sheegay maayirkana inay bilaabiye yihiin oo imkada haraad u jiro maayirku isla markiiba uu dalbaday biyihii waxaan u keenay raashin wixii loogu talagalay baahida kale noo sheegeen oo biyana waan u talabnay laakiin waa dadka ugu daran bay kamid yihiin Cadaadheeri meel dhaantana wadanka ma jirto maanta waxay ku jiraan waqti adag waxa loo baahan yahay in mataqaanaa sidii la isku gaarsiiyo intaasi kadib waxa arintani ka mahad celiyay dadka ay abaartu ku heshay deegaanadaasi waxaanu nahay ummadda abaaruhu keeneen ee Faraweyne iyo Gatawaha ka soo kala guurtay waanu u mahadnaqaynaa bulshada noo keentay iyo odayaasha iyo dawladda iyo madaxda gobolka iyo maayirka Mukhtaar Nuux Ibrahim Hon Cable TV gobolka Gabiley